haatan Jowhar wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle ayaa tababar ku saabsan dhowrista xuquuqda dadka la haybsooco waxa ay uga furtay magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi. Cabdiraxmaan Xuseen Wadani wariyeena ayaa Jowhar inoogu soo diray dhambalkan. tababarkan ku saabsan wacyigelinta dhowrista xuquuqda muujinta aragtida ee dadka laga tirada badan yahay ayaa waxaa soo agaasintay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana ka qayb galaya qaar ka mid ah bulshaweynta reer Jowhar oo horeentay daafurka kulankan ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe Madiina Cadow iyo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee dowlad goboleedka Hirshabelle. وحكلوا لو بعينه أو شيء كلامه مجرى قبض إسلامك وإنه قبض ولا إسلامك هو شهادة إسلامي ما أي إن كل مسألة حقوق إنت إن كل مسألة عنده. أنا ده سيدي مستعان سيدي الله بعدين إلى إيراد وقف كل شيء هاي وقف إسلامه وقف سوماليا وقف الخراويين وقف المجا شيء وحتكون قبض ماشي ميادي بل وحتكون هذا حتى أنا وحكي القبض كريم حتى gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Ismaan Maxamed Muqtar Baari iyo xogeyaha guud ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Abshir Guur ayaa iyana dhankooda kulanka wacyigelinta ka hadlay. waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo labadaas arrin laakiin yay noqonin kiriya tahay cid aragtida darbaaxi kartaa cid aragtida cay kartaa inay noqoto saas wariig ku diin waxaan rabaa xorriyad qolka Allah waxaa u banaan tahay in fikirkaada soo jeedisid laga dhageysto xaqa u leedahay inaad wax soo jeedisid xaqa u leedahay laakiin inaad qof ku caysid afkaaga inaad qof yadaada aad magaciisa aad u qaadid xaaraam waaye dhinac kastaba waxay ka tahay xaaraam xag diini iyo xag kale marka waxaan leeyahay waa soo dhaweeynaa waan isku baraarujinaynaa hada maasha sida loo yiraahdo dadka laga tiri badan qof laga tiri badan qofka qoyska ka dhashay qoyskiisa uu ku qoran yahay Soomaalida waxay iska naqatay dad qaaliban oo hadalka marba inay xujiyaan. wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Saacdi Maxamed Nuur Burus ayaa ka hadashay dhibaatada ay leedahay xuquuqa. amtiyad bari Allah xariiste godaa loo qoday waxaan ila qabiilka qof soo qaadi kartaa qof yaa ka hadii kartaa qof ninkaas midgaan waa qof tii karmay marka waxaan markaas u dhagtahay inay xoog loo sheego hadda maadaama dowlad aan nahay oo federaal ah oo deegaan wada dowladiisii ay raatay ay maamulkiisa ka samaysay dadkii hanuunintii iyo wacyigelintii in aan maamul goboleedyadii meel walba laga qabto. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar.